شركة تلسوم يا مقالة Ceergaabo قبطي برنامجكي لحاد Aroos Wacan taasoo ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Sanaag ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Telesom ee gobolka Sanaag Jamaal Xaaji Axmed iyo sidoo kale maamulaha iibgeynta ee shirkadda Telesom Cabdiwaax Xaab Maaxi sidoo kale Maxamed Mubaarak oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telesom maanta waxaynu nasiib u yeelanay haddii aynu nahay reer Sanaag in degmada Ceergaabo ama gobolka lagu qabto xafladda Aroos Wacan aynu maanta halkan isugu nimaadno 31 bisha 10aad 2021 taasoo ay ku guuleysteen dhalinyaro ay ku guuleysatay isugu jirta gobolada barnaamijka Aroos Wacan in maanta aynu halkan Ceergaabo ku qabanayno sharaf bay noo tahay dhammaanteena sharaf bay noo tahay طبعا برنامجكم مدة سنة soo socday oo shirkadu ugu tala gashay in lagu dhiiri geliyo guurka oo ah shay bulshadeena qiimo ku leh diinteena qiimo ku leh ilaahay agtiisana qiimo badan ku leh rasuulkeenuna sallallahu alayhi wa sallam oo in badan dhiiri geliyay halka bulshadu ka unkanto ee qoysku ka unkamana ah inaanu dhiiri gelino oo dhalinyarada guurdoonka isu guurino oo isu soo dhaweyno oo jacaylada kala fogaaday isu soo dhaweyno arrin muhiim ah bay noo tahay in halkan aynu ku soo bandhigno codsadayaashii barnaamijkan guur Aroos Wacan oo isugu jira laba qaybood qayb ku heli doonta nasiibka oo ah kuwii loo soo codeynayay iyo qaar kaleba iyo qaar kale oo halkan dadka goobta fadhiya qof kamida oo isna barnaamijka maanta guuleysan doona Telesom waa shirkad tallaabsatay rabbi baa taashka saaray taleefankeedan ku hadal $7 ku shubo khadkuna toos buu u joogaaye bil iyo tira badan ku hadal Telesom company weeye waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira cuqaal taliyayaasha ciidamada booliiska iyo qaranka ee gobolka Sanaag kuwaasoo shirkadda Telesom ku ammaanay barnaamijka Aroos Wacan ay dhalinyarada isugu guurinayso marka hore shirkadda waa u ducaynayaayo waxa weeye shirkad dadkeedii wax ku soo celisay oo wixii ay ka ganacsatay dib u darina waa maskax aad u fiican inaad 7 qoys oo dhalinyaro ah nasiibkoodu galabta halkan ka yeeli doontaan oo aqalkooda asaasi doontaan qayb ka qaadateen waxaan leeyahay shirkadda Telesom aad baa ugu mahadsantiin dhalinyarada nasiibkoodu halka ku soo maanta galabta halkan arintan nasiibka ku helayna idinkana waxaad leenahay Allah idin barakeeyo ilaah baa mahad leh Telesom oo dadkan ay isu guurisay hawsha tan ay barnaamijkan ay ka hawl gashay waa ugu mahad celinayna waana ku soo dhaweynayna waa wanaagsan tahay shirkad ka soo celisa dadkeedii wax aad baan u soo dhaweynayna maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo geestooda halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay barnaamijkaasi runtii waa arin khayraada waa qodobkii taranta waa dardaarankii rasuulka waa nicmo aynu u baahnayn in laynoo daafuro dadka nasiibku siiyeyna waa u ducaynaynaa ilaahay isku barakeeyo kuwii ubad wanaagsan iyo khayr kala hela Allah ka yeelo maanta hadda halka soo gaadheen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u hambaliyaynayaa guulaystayaasha oo aan leeyahay hambalyo rag iyo dumarba waxaan kaloo hambaliyaynayaa shirkadda Telesom oo barnaamijka noo daadihisay waxaan leeyahay dhammaantii waa guulaysanay gabagabadiina waxa qaar kamid ah ka soo qaybgalayaasha barnaamijkaasi ay wareejiyeen serverka halkaasi oo lagu soo bandhigay lambarada 7 dhalinyarada